بعدي مر لبعض مر سدحاد مر أفراد وقت شرف تقاليقه نردونا iyo salaadiinta ka soo qayb gala shirkan muhiimka ah ee looga hadlayo waxbarashada waan idin mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga qiimaha aad noo soo hurteen salaan ka bacdi kulankeennan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa xog kala qaadasho iyo warbixin inaan is siino taasoo ku aadan waxbarashada si gaar ah dadka kulankan ka soo qayb galay tiimka waxbarashada ama guutada waxbarashada halkan faalladayna ka sii doonto waxay u qaybsamaan laba kooxood koox bannaanka noo qaabishan oo scholarshipka ama minxooyinka noo qaabishan iyo koox gudaha ka hirgelida waxbarashadaas oo dadkii waxbartay ku ishraafta labada dhinac waxaan sii doonaa kelimooyin ilaahay haddii fursadiisa ay noo ogolaado shirkeenna waxaan ku furfuran doonaa waxa lagu furfurto waxa ugu qiimeeya qaaliya badan oo ah aayaat min dikri illaahi alxakiim sidaas oo kale waxaan kelimaad sii doonaa iyo lagjar ama khudbooyin odayaasha iyo nabadoonnada iyo ardayda iyo aqoon-yahanada ka soo qayb gala shirkan qiimaha iyo qaayaha leh waqtiga oo na kulaabaya aawadeed shirka ayaan hore u geli doonaa shirkana waxaan daaha uga qaadi doonaa aayaat min dikri illaahi alxakiim waxaana inoo akhrin doonaa ardayga la yidhaahdo cabdiraxmaan cali axmed oo ardayda scholarshipka ama waxbarashada minxada wax ku barata الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين أيا لنا هاي kaasi wuxuu ahaa ardayga la yidhaahdo cabdiraxmaan cali axmed oo shirkeenna waxbarashada noo daahfurayay ayada qur-aanka ilaahayna noogu daahfuray kelimaadka aan qaybin doono aad bay u badan yihiin waqtiga aan haysano iyo jaanisku uu iska kooban yahay marka waqtida oo shirka kasoo qayb gashay waxaan ka codsanayaa in dadkaan kelimaadka siino ama lagdariska ama khudbooyinka aan siino si aad iyo aad ah khudbada qaybta ugu nafaqo badan ay ka taabtaan waqtiga oo na kulaalaya aawadii iyo video canjala oo noo socdo saacadihii khudbada oon ku dhadhownahay markaan waxaan siin doonaa kelimo soo dhaweyn ah dadka lookalka ama gudaha nooga shaqeeya dhanka waxbarashada shirkan na qaban qaabiyey al-ustaad cumar nuur axmed cumar nuur cali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان مركز شرفتا ديها لهايين odayaasha aqoon-yahanada iyo ardayda intaba waan idin salaamay waxaan ku salaamay salaamta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحام هذا السوكوبي كرين أيوسف نعطي الله سبحانه وتعالى لو سوكتك لي إن سقولني ما دو مكان كان سي أن وحرم صنع الرمهينا قالهان كنا على خبر شر برك الله بعد وحام هذا السوكوبي كرين أيوسف نعطي زمان بدكي أجيبي رسالتي أما أرويسيسكي أم سوكت بني oo ahay in waqtigooda muhiimka ah ay noo soo hodaan ay nagala soo qayb galaan shirkan muhiimka ah dhinac walba ay halahayeen waxaan leenahay maxaad had ka gaarto waqtiga aad noo soo hurteen jaaniskiina muhiimka ahay oo nasoo siiseen waxaan leenahay aad ayaan ugu mahadsantihiin marka shirku wuxuu noo galnaan doonaa sidii ugu sheegaba muwaasilka ama xiriiriyuhu codado fara badan asigaa noo faahfaahin doona anigu waxaan ku egaageliya inaan kelimadu tarxiib aan qaato marka waxaan leeyahay soo dhawaada waana mahadsantihiin. جزاك الله خير يا لنا كاسوها الأستاذ عمر نور علي أو سود ويني طبعا أنا قحتان سود ويني الشركة وحكم سبسين سكوا من واحد لي جلسة عن سيرة هنا يكون شيء واحد كان لي ذا أو نقهر لينا أو مركا نك وحبر الشلا ندت كمش زويني مركا وكان كلمة سين دونا مؤتمرك يا حقيقة يسوق سبسين سيد بقى حضنا نجلس سين دونا الدكتور عبد القادر خليف آدم.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الريال أبتيال ولا ريال إيو دليرة عن أنا قلت لي والد كوهاي رجع الضمربا كل جيوات سلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa uu ku saabsan yahay horta farxad weyn bay tahay in ay isu yimaadaan dad ehela oo raxim wadaaga oo walaal ah oo danina ka dhaxayso maanta alxamdulilah ilaahay kulmi ayaa mahad leh. intaa kadib dadku inay tashadaan waxa waaye dad waliba dadkay ka tala badan yihiin waa ka horumar badan yihiin qowmiyadaha adduunyada maanta ka jirana haddaad fiirisaan waxaad arkaysaa inay kala sarreeyaan jiisi loo kala sarreeyo oo tusaale ahaan maantay ilaahay ka sokow bini aadankii uu kala saro maray wuxuu ku kala saro maray wax kale maaha waa aqoon iyo maamul iyo organisation iyo is-uruursi iyo wadatashi ayay ku kala saro mareen. marka inaan tashanno oo isu imaano xaqna waa u leenahay qalyana waa u leenahay iyo taariikh. marka inaan isu imaano maantay gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa hadba mawduuc baa laga hadlaa. maanta waxaan ka hadlaynaa waxbarashada. waxbarashada waxaa jira dhalinyaro ehelkeenna ah oo aad u wanaagsan oo niyad wanaagsan oo jooga dalalka adduunka isu xilqaamay markaa in wixii ilaahay siiyey ay walaalahooda u baahan wax ka gaarsiiyaan. dhalinyaradaasi waxay joogaan asal ahaan ay ka bilowdeen Sweden kadibna waxaa ku soo darsamay Norway iyo Finland. dhalinyaro aad u wanaagsan maantay gabar ka mida guddigooda ayaa nala joogta oo idiin warrami doonta haddii alla idmo una noqon doonto oo warka u geyn doonta haddii alla yidhaahdo. dhalinyaradaasi waxay la baxeen maadaama aan aqoonta xaggeeda aan ahayn dad ku magacaaban oo lagu yaqiinay inaan tii sii wadanno ayay isdareensiiyeen. waxay la baxeen urur bay samaysteen ururka dhiirigelinta waxbarashada ayay la baxeen. marka 2009 ayay aasaaseen ururkaas. ujeeddada ay u aasaaseen waxay ahayd waxay yidhaahdeen waddankii Soomaaliya waxbarashada ka jirtaa maanta dhaqaalay noqotay. qofkii waalidkii iyo walaalkii ka bixi karana wuu helayaa qofkii kalena ma helayo. dad waxaa jira yihiin ehel oo walaalaheena oo awood u lahaan lahaa inay horumar wanaagsan gaaraan haddii ay fursad helaan. dadkaas aan caawinna ayay yidhaahdeen. marka waxay ku bilaabeen 2015 arday waa sii wadeen. sanadkii ku xigay 10 arday bay gaarsiiyeen. sanadkii ku xigay 14 bay gaarsiiyeen. sanadkii ku xigay 25 bay gaarsiiyeen. hadda u dambeysay 41 arday ayay hadda maanta ka bixiyaan iskuulka. arrintaasi waa wax weyn. adduunka waxa lagu tartamaayo waa human resources waxa la yidhaahdo ama khayraadka dadka waayo waxa muhiimka waayo wajacalnaakum khalaa'ifa fil ardi dadku ilaahay yiri adduunyada dadkaa maamula. marka dadkuna waa kala quality sameeyaan siday u kala quality sameeyaan una kala dadaal badan yihiin ayayna u kala saramareen sidaan sheegay. marka ardadaasi dhalinyaradaasi way dadaalaysaa khayr allah siiyo. anigu hadda intaan halkaa ka soo tegin 2 shiro kuwada aan ka qayb galay. xamaasad wanaagsan ayaa jirta. xamaasadaasi waxay u baahan tahay waxay la mid yihiin neef candhadiisa ay caan ku jiraan inaad salaaxdo kaaga baahan yahay si uu kugu godalo oo uga maasho caanaha. marka dhalinyaradaas waa fursad wanaagsan. dabcan lacag ka soo hartay oo ka badatay maaha waxay bixinayaan. baraf bay ku shaqo tagaan dhibaato iyo qabow bay ku shaqo tagaan. dad gaala ahay ag joogaan wixii ilaahay siiyey wax ka bixinayaan. marka dhiirigelinay u baahan yihiin. waad mahadsantihiin in la yidhahday u baahan yihiin. jazaakum allahu khayr in la yidhaahdo lana tuso halkan in shaqo ka socoto oo keliya uun ardada yaryareed ay wax siinayeen keliya maahane inay dareemaan ehelkoodina inay maaragtay la duuban yihiin oo ay la safan yihiin oo ay raalli ka yihiin shaqada ay hayaan. waayo haddaan taas samayno halkan ka samayno waxaa suuragala wax ka weyn inay noo qabsoomaan oo iskuullo mustaqbalka ay qayb ka qaadan karaan oo ay jaamacad mustaqbalka qayb ka qaadan karaan oo wixii kaloo isbitaal qayb ka qaadan karaan oo horumar kalena bulshada ay qayb ka qaadan karaan ayaa maaragtay suuragal noqon karaysa. marka taasi waa dhalinyaradaas. wixii kaloo warabo dheeraadana kulley waa la idin siin doonaa. ninka dhinacayga fadhiya ayaguu ka mid yahay
gabadha nala joogta iyada ay ka mid tahay waana warsiinaysaa dabcan wixii kaloo u baahataan oo su-aalana waa laydinkaga jawaabayaa oo waa laydinka shaafinayaa laakiin hadda mashruuca socdaa waa mashruuca ardadaas la caawinayo waana la ballaarin karaa sidaan sheegay intaa haddaan uga baxo arrinta iskuulka ee dadaalka dhalinyaradaasi wadaan waxa waaye wadatashigu mar walba muhiim ayuu noo yahay qof waliba haddii gurigiisa iska fadhiyo waxa waaye qof walba ilaahay risqiisa wuu qoray wuuna noolaanaya laakiin bulsho ahaan in loo noolaada iyaduna muhiima oo xaggi diintana muhiima muxuu ahaaye isheeg xaggi adduunyadina muhiima walaalayaalow marka in waxyaabaha guud ee danta guuda aan iska kaashano waa muhiim watacaawanu cala albirri wattaqwa waaye wixii qof dhiba waxaa la yidhi tol ma dhibaan marka yani waxaa laga yaabaa hadda iskuulka muscab ee naga jabsan ee ka soo baxeen dhalinyaro badan oo jaamiciyaala kuwana hadda dhigtaan xaafadeena ku yaal dhulkiisa aan leenahay waxaa laga yaabaa $10 haddaan isku darno in ay iskuulka aan dhisi karno oo haddii ardada dhalinyarada dibadda lala kaashado isaga dhanba 4 dabar laga dhigi karo oo dugsi hoose dugsi dhexe ilaa jaamacad laga dhigi karo meelaan ku shirna laga dhigi karo isku aragna laga dhigi karo isku dhiirigelina laga dhigi karo marka fursadahaasoo dhan way jiraan waxaana u baahannahay inaan iska warqabno oo tashano si aan u gaarno waxaan u mahad celinayaa horta guud ahaan khiyaarta kasoo qayb gasha meesha oo muxuu ahaa kulligiin waad mahadsantihiin in sidaan la isugu yimaadahay wax weyn bay noo kordhinaysaa waxaan gaar ahaan u mahad celinayaa dhalinyarada halkan ka shaqaynaysa laftooda oo waxaan abaabulay oo sukeena keenay oo isku xilxilaya ajiibay oo naladoonada noo way mahadsan yihiin oo walaalaha gabdhaha laftooda ma ilaawayo shaqo adag bay noo wadaan way mahadsan yihiin dhalinyaradana waxaa laga rabaa inay ka tusaale qaataan dadka ka horeeya maaragtay walaalkood iyo waalidkood ah ayaa looga baahan yahay marka qof waliba door ayuu noo leeyahay qof waliba markuu doorkiisa guto aanna wada tashano aanna iska warqabno ayaa insha allahu gaari doonaa qayrkeen la tartami doonaa haddii laga yidhaahdo intaasaan uga baxayaa xisaa halkaa meel kale layga sugayaa marka walaalahanan huri waayey marka insha allahu mar kale waad mahadsantihiin aanna saa isaga warqabno oo aan tashano waxa weeye kulligiin nin weyn iyo nin yarba waxaad dadaal baa la wadaa dadaalku laakiin waa inuu quality lahaado annaga awowayaasheen waad ogeedeenoo qur-aanka ninka gefgefaya ninka xafidsan oo xaadu la akrinayso isku mid maahayn cilmiga kalena waa la mid cilmiga nooc kasta uu yahay science hadduu yahay social science yahay hadduu luqada yahay kulli waa isku wada macne marka waa iskuulaan u diray un wax tari maysee wuxuu waa inay quality yeeshaa qualityna waxay yeelanayaan markaan mar walba saan kusii horumari lahayd aan ka bekerayno aan ka tashanayno ayay yeelanaysaa marka xarunna waan u baahannahay inaan yeelano oo aan tababaradeenna iyo waxeena iyo aqoon kororsigeena wadatashigeena shirarkeena aan ku isagana ku maamulano haddii aan la yidhaahdo marka ilahay khayrkana waafajiyo waad mahadsantihiin جزاك الله خير ayaan leenahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdulqaadir khaliil markaan kelmadhaa la mida waxaan sii doonaa gabadha la yidhaahdo hodan cabdilkariim macalin أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد دمانتي ومهسنتي أغيريال وراريال ماديرو كليين بعد ما ماشي أسبوعي ما نحاول أورك كبير الجنيسة وكذا طيب لسه محطيشو وقرر الله كوري وكيلا لو جوغان عرفنا إن محالدها يشيك وأورك أو بلاغتو magaciisa iyo hadafka aan leenahay soo ogaano anigu waxaa ka imaaday Sweden dad badan oo meesha joogo ilmaadeeraan ahnay waa isla yaqaana kulli Cabdikariim Cabdullaahi la dhahayo dhalay ururka waxaa ku jira dadka xubnaha ururka maamulka ku jira waa iga horeeyay awal mar dhow Sweden tagay laakiin markaan tagay waa la dhacay dadkii inay iscaawinayaan dadku walaalo waxay ka dhiibayaan wax muhiim ah maanta xaqiiqada runtan ii sheegaa wax Yurub yaalay dadka lacagta ka badata marsan ku sheegaadeen Cabdulqaadir oo dadka lacagta ka badata ee dadka ka caawin karaan laakiin waxa ugu muhiimsan oo qof loo qabto ama in qof wax la baro waxaan rabaa inaan igu soo jeediyo maanta project laakiin projectka ma haysto ana computer inaga akhri doono walaalihiina Sweden eragay soo qoreen
كتب روحة سؤال قبتين ويدي كرتين ururka magaciisa waxaa la dhahaa ururka dhiirigelinta waxbarashada UDHW aan la soo gaabiyey ujeedada shirka ee ururka dhiirigelinta waxbarashada maxay tahay ujeedadiisa maanta inta iskugu imaanay waxyaabaha ugu waaweyn waxaa waye inaan wadaagno warbixinta ururka inaan ballanqarino saa hore uu sheegay in la xoojiyo midnimada iyo iskaashiga qoyska waxaa ka wada familka dad familka inta jooga iyo familka waxay dhaleen in la balaariyo kaalinta walaalaha Soomaaliya dhegeysi talooyinka iyo tusaalaha waxgaradka maanta meesha fadhiyo doonta kulanka maanta warbixinta ururka kaalinta odayaasha ee maanta meesha nagu leeyihiin iyo wadankii kaalinta ganacsatada kaalinta aqoon-yahanka kaalinta ardayda jaamacadaha taariikh ahaan ururkaas oo ku bilowday 2008 ee waxay bilaabeen dadka Sweden jooga inay taageero u aruuriyaan lacag isbitaalka Ceelbuur sababteedana isbitaalka Ceelbuur laga furray markii dadku isku imaadeen lacag ay aruuriyeen waxay ogaadeen markii la isku imaado wax la aruuriyo wax la tari karo inkastoo la furin maxalladaha isbitaalka Ceelbuur 2009 ee waxay bilaabeen inay isla shaqeeyaan ay dhaantada wax ka dhiibeen waxbarasho maadaama wax aruuri karno wax isku qoorno waa dadku walaalo wax u qaban karno 2010 waxaa la qaatay ardayda ugu horeysay ururka 3 arday la qaatay 2011 ururka waxbarashada ayaa la aasaasay Sweden Stockholm caasimada lagu aasaasay buriga qaraabada leeyihiin lagu aasaasay 2012 waxaa lagu soo biiray oo arrinta ku gaartay wadanka Norway Finland iyo Denmark anagu soo biiray arrinta oo iyaga fudud horta maxay tahay ururka dhiirigelinta waxbarashada waa kuma waa urur samafal waxaana aasaasay koox indhagarad ah Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Sweden kuwaasoo dareema baahida loo qabo inay taageero u fidiyaan walaalahooda ku nool wadankii hooyo ee Muqdisho ama Xamar ururkaani waxaa loo aasaasay inuu garab taageero siiyo ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan khidmada waxbarashada isla markaana aanan haysanin cid kale oo ka bixisa halku weyn halaas waa wax kale ma aha hadafka ururka dhiirigelinta waa in ilmo kasta oo ka tirsan qoyska oo helo waxbarasho tayo leh iska bixi aqoonin kullina wax wada bartaan ururka hadafkiisa saas u ah goob howlaadka waa Muqdisho meesha aan ka howlgalno waa Muqdisho ardayda caawiyo meesha ay joogaan waa Muqdisho nawaaxiga Muqdisho Sweden iyo Finland iyo Norway iyo Denmark aan dhaqaalaha laga soo aruuriyaa aragtida ururka dhiirigelinta waa in waxbarashadu tahay wadada keliya ee looga bixi karo burburka colaadda iyo dib u dhaca ka yimaada ummadeena horumarinta iyo dadka dugsiga xadhigta abaalmarin ardayga ugu badan ardayda qalin jebisa sanadkii abaalmarin la siiyaa astaamaha ardayda la qaato inaa fahmina laga yaabo ardayna macada qaataa arday iska bixin karin khidmada iskuulka haysan ruux ka bixi ardaygaasoo kale la caawiyaa qof ka bixisan haysto mana iska bixi kara asaga degan goob howlaadka degan Muqdisho kale hada Muqdisho anaga ma balaaran wali ma weyne dad waaweyn ma noqon Ceelbuur iyo hada ma joogna Muqdisho joogna balwad aan lahayn qof balwad lahayn israafiil dhalay waxay noqon kartaa gabar israafiil dhalay ilmo kale ee bashaxda waa laga bixi karaa muhiimadu waxaa inuu israafiil dhalay in israafiil iska dhaltaa maaha xiiseynaya waxbarashada qof waxbarasho rabto waxaa la ogaaday qof waxbarasho rabo wax ma laga bixi karo qof oo la dhahayo iskuulka aad wax ma laga bixi karo qof waxaa jirta diyaar wa inay wax barato oo ka mahad celinayso qofkaasoo kale waxaa laga bixaa qof jiitamaysa wax laga bixaa fursadda ma lagu khasaarinayo u hoggaansan sharciyada ururka dhiirigelinta waxbarashada iyo kuwa iskuulkana waa muhiim aanan ka tirsanayn urur siyaasadeed ardaydaasa laga bixiyaa islaamahaas leh kala horreysiinta see loo kala hor qaataa dadkii dad wada waxaa ku jiro wada rabaan in la caawiyo laakiin saasay tahay waxaa la gaaraa zuulina waxaa lagu gaaraa go-aan ardayda la qaadahay noocay yihiin midda koowaad aan tixgelin waxaa waa aqoonta diinta waa ogtiin diinta muhiim
muhiimay noo tahay qof dugsi ka soo baxay dugsi qur-aanka xifdisan yaqaano kulley waxyaabaha ugu weyn aan fiirino marka halkaas joogno waa aqoonta diiniga kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad ardayga iskuulkooda ka gala waa arday hore u socdo hore usii socodsiiyana qoftaas hamiya leedahay dadka dhan hamiya leeyihin laakiin ardayga dadaalaya tixgelin gooni oo laga mudan yahay arday dugsi sare dhigto iyo ardayga dugsiga dhexe dhigto warbixin aruurin annaga meeshaan ma fadhino wakiilaa noo joogaan wakiilaa noo joogaan marka foomama la soo buuxiyaa saa ogtiin ardayda hore usoo buuxisiin foom codsiyaa jiro foom dabagelid qofka waa la dabagalaa iyay ka dhalatay iyay tahay qof ka bixisa maa jirto qof dibad u joogta maa jirto ma awoodaa dadka yaqaanaa jooga halkaas dadka inta ma wada joogo meelaha dhan wada jiraan haddii la aqoonin waxaa la soo dirsadaa taleefono iyo dadka lagala xiriiri lahaa waa la soo wacaa waa la ogaadaa waxaa la dhahaye qoftaan qof wax haysata miyaad iska bixi kartaa si loo weynin fursadaha foomamka aqbalaada qofta waa la aqbalaa foomamkana qabaan waraysi waxaa la wareystaa waalidiinta ardaygaa la wareystaa iskuulkaa la wareystaa wakiilada inta noo joogaan wareysanaa cid kasta oo xoogaal ah aan wareysanaa saas darteed waxaa dadku ugu wacna maanta odayaasha iyo dadka kaleete adeerayaasha sharafta waxaa ugu wacna waxaa waaye in ay ogaadaan maxaa la dhahaye arrinta aan ballaaran saa u ogaano qofkii u baahan aada ugu baahan ee noogu sheegaan habsamo socodka hawsha kow waxay ka bilaabataa oo warka soo fuliyo ururka marka waxay diyaariyaan marka koowaad miisaaniyadda lacag iska soo aruuriyaan qof walba albaabka u gargaraacaan oo yurub joogto siiba sweden anigaa ka warqabo waxay diyaariyaan miisaaniyadda kadib go-aanay qaataan meeqa ardaya qaadan karnaa sanadkan dhaqaalahena waa meeqo markay go-aanka qaataan waxay usoo gudbiyaan warbixinta iyo maxaa dadka aan qaadan karno dadka wakiilada ee muqdisho jooga usoo gudbinaa warbixinaa la wadaagnaa wakiilada iyo ardaydaba kadib codsiyay soo gudbisadaan foomay soo buuxiyaan foomka markay soo gudbisadaan waxaa ku xigo arrinta baaritaanka waalidka ardayga wakiilada iskuulka waxaasoo dhan ala soo baaraa waqti dheeray qaadataa kadib waa go-aan laga gaaraa ama aqbalid ama diidid macnaha aqbalid ama diidid marmar ma noqon karta sax ma ogaan karna anaga meesha ma fadhino saas darteed haddii ay odayaasha iyo ganacsadiina kaalmeeyaan in caawiyaan ay dhahaan annagani garab taagan macnaha maaha qofta inay lacag ee lagu caawinaysa xataa maaha lacag marka kuwaad qofta maku caawin karta laakiin fikirkaada inaad balaarisid ee dadka kaleeto fikirkaada gaaro waxay kaa caawinaysaa in la iscaawiyo ee dadka is caawiyaan saas darteed muhiimay noo tahay annaga inaan iscaawino oo wixii sax ah aanoo soo gudbisiin meeshaa joognaa dadka haddii la iscaawinin ee dadka ogeyn waa dhib keliya dad anaga isuuda noogu imaaday dhaheen nimayo lacaga naga qaadiin bil walba lacaga keena dhahdiin markaa meesha tagnane arday wax laga bixiyo ma arkin wax sheega xataa ma arkin annagana maalin laakiin inay wiilasha wacaan taleefanada waxay leeyihiin lacagta koontada maku soo xirtay bil walba dadkii dhibaayaan lacagta maku soo xirtay ilan ardaya diyaar u ah bishii laga bixiyaraba bil walba markaasay saas unka taleefon uu kor taagan yihiin marka muhiim waayo inay gaarto meel ay denmark nooga imaadaan cabdiqaadir khaliif iyo denmark waxay nooga imaadeen norway annaga norway inaa sweden ka tagnaa norway tagnaa yurubtiyaa la iskaaga imaaha ilaa waxaa noogala imaaday america si arrinta u saacidaan laakiin xamar baasha waa ka fadhisaa weli waaqa nabadgelyada maa keenayso inay dadka arrinta fido ee ogaadaan 41 arday aa laga bixiya waxaa ka bixiya 12 qofood aa bishi ka bixisa lacag wax weyn wax yar ma waa wax weyn marka inaa arrinta gaarsiisiin qofta imaatada u sheegtiin la iscaawiyo muhiimay noo tahay saas darteed waayo waxa ugu imaada maanta ugu weyn inaan ii sheego waxaan ii wadaa xulashada ardayda see lagu xushaa nidaamka xulashada ardayga foomka la soo buuxiyaa waxaa laga hor aqriyaa warbixinta ardayda xubnaha ururka oo go-aanka gaaraan xubnaha sare xubnaha dhexe go-aan gaarista xubnaha golaha dhexe iyo fulinta ayaa gaara go-aanka qaadashada ardayga wakiilada ururka dhiirigelinta ee xamar jooga go-aan gaaris qaadashada ardayda qayb kama laha nimankaan shaqo kuma laha nimankaan hawshay noo qabtaan
asdiina iyagaa dadka qaato iyagaa waxay meesha arrinta laga gaaro waa Stockholm kaalmada ardayga lacagta iskuulka keliya laga bixiyaa maxaa looga caawin waayey inta kale su-aal fiican waaye dadka inay isweydiiyaan laga yaaba qofta wax ma haysato maxaa looga caawiya waxyaabaha kale iskuulka maxaa la buugta iskuulka baska lacagta lagu raacaayo jaamacad maxaa dadka ardayda dugsi sare loo dhigi jaamacad looga bixi waaye dugsi hoose ma caawina maxaa loo caawin waaye iyo dugsi quraan su-aal fiican waaye soo maha jawaabtu waxaa waaye hadafkeena waa sidaas inaan caawino kulli wax walbo laakiin maantase tabarteenu ma gaarto halahaas tabarteena maaha inaan wax walba caawino laakiin haddaan iskaashano mustaqbalka ay waxaysanto waa laga yaaba wax walba inaan ka caawino laakiin maanta waxaan joognaa dugsi dhexe iyo dugsi sare inaan ka caawino ardayga arda qaadashada 2010 saddex arday aan qaadanay oo ku bilaabnay 2011 toban arday 2012 14 arday 2013 25 arday ilaa 41 iyo 40 qofood meelaasaa laga dhiibaa lacagta hadeertaan la joogo halaas ka badan aan rajeynaynaa in laga bixiyo lacagta dadka dhan ay waxay bartaan oo la helin qof guriga fadhiso oo dhaalo lacag la'aan darteed aan u fadhiyo guriga waxba iska bixin karin aan la helin saas uu yahay 2014 ilaa 2015 rajadeena insha Allah hawsha Soomaaliya 2013 warbixinta ururka oo la balaariyo maanta maxay iskugu imaanay warbixinta ururka oo la balaariyo furitaanka xarun hawleed ee ururka in la sameeyo oo Muqdisho laga furo marka insha Allah aruurinta ardayda ururka dhiirigelinta waxbarashada oo 6 iskuul la iskugu aruuriyo arrintaas hore inaan maqashinaan maleeyahay ardayda laakiin waxaa nigala hadli doona arrintaas ururka wakiilada meeshaan aniga shaqo kuma lihi aruurin xiriir wada shaqaysi inay dadka dhan wax isqabsadaan markaa tagana meelahaas heer galbeedka waxyaabaha ugu daran waxyaabaha ugu weyn waxay ahayd dadka inay iscaawiyaan diinta islaamkeena laga qabtaa dadka qof walba qoftay ka tabaryarta inay caawiso la isgargaaro qofta weyn qoftay ka yartahay iscaawiso garabka qabato laga yaabo micnaha weyn inaan hadda fahmi karina markaa joogno qurbaha dadka oo qaraabada ee aad isku qaraabaysanaa waxaa waaye wadan gaalo markaad joogtid waxyaabo badan aad dareemaysaa maanta inta ku dareemaynin waxyaabo badan aad kula macaanayo marka dadka inay iscaawiyaan waa muhiim ee tahay inaa halaan inta iskugu imaatay wax muhiim waa inaan micnaheed si kale u kala fahantiina maanta laga yaabo maanta waa la imaado waa neewaca qof walba maskaxda inay sawir ugu jiro laakiin sawirka ugu weynaa maanta inta u fadhino waxaa qof walba ajira helay waa erayga in la aruuriyo oo la balaariyo ardayda meeshaan aan wax ka bari lahayn oo awoodin oo maanta awood u lahayn wax ka bixiyo wax ka weynna ma jiro maanta in dadka wax laga bixiyo marka waxaan idin lahay dulqaata shaqada wakiilada ay qabtaan ardayda raadiyaan raadinta iskuulka ku habboon ay sameeyaan xiriirinta waalidka iyo xubnaha isku xiriiriyaan maamulidda dhaqaalahay sameeyaan lacagta usoo dirnaa loo maamulaan soo diridda dhammaan cadeymaha lacagihii la isticmaalay noo soo diraan waxaa qabnaa xubno dabagala lacagihii meesha lagu isticmaalay ilaalinta sharciyada ururka ay sameeyaan inta markay joogaan ka warqabka aqoonta ardayga iskuulka ma aado waxaasoo dhan ay ka warqabaan la socodka isbedelka guud ee ardayda la socdaan u sharaxidda foomka ururka ka hor inta aysan buuxinin ardayda intay buuxinin gaarsiinta ardayda iyo ciddi kale oo qusayso inay arrinta balaariyaan wadamada oo ururka hadda ka qayb oo ka howlgalo waa Sweden abuurtay waxaa ku xigta Norway Finland Denmark wadanka kale ku xigi doona ma naqaano inay Muqdisho noqon doonto xamar ay noqon doonto mooyin waa rajeynaa laakiin ay xamar ka bilaabato la meesha weyn oo lacabaha waaye ganacsataa joogta odayaala joogaan dad waxgarabaa joogaan marka waa rajeynaa insha Allah inaad shirar kala qabsatiin iscaawisiin oo wadamankii kale see noogu dabadaysteen oo kale noogu dabadaysatiin annaga wax gooni kaloo laga helaa mala laakiin dad walaalahe waa waxa caawiheeno maanta dadaa telefonka ku jira dadaa hore u imaadeen wiilalaa shalay ilaa iska daba ordaayeen hal shilin ay ka helayaan mala hal shilin ay ka helayaan oo ahayn inay ajir ka helaan ee dadka walaalahooda caawiyaan lacagtan isuuna laga keenaayeen ma ahan lacag maxaa la dhahay NGO lagu qaato
waa lacag ay dadka biilkooda ka soo diraan dadaa biilkooda haysanin ee ceebta loo diida daruurta may sheego marka waxaa waaye waxay jeebkooda ka soo gooyeen ee dheen walaalihiin waxay qabta halaas waaye lacagta iska aruuriyaan waa lacag dhan boqol koron waa lacag $14 $15 bisha udhexeyso ee qof walba dhiibta bil walba bisha waa aragtay si wardeyso oo maalin walba in telefoon loo diro lahaayo qolada qasanada u fadhiso lacagta ku soo xirta koontada oo bil walba dagaal ka soco waa ogtihiin lacagta u dhib badan markaa qof ka qaadaysa taariikhdan in la iscaawiyo taariikh ahaan in la iscaawiyo oo waxa la isku qabto oo dadka waxa la baro inta laga keenay waa la baro waa la soo ogaaday waa la baaray taariikhii la baro qorinta iyo aqrinta xisaabta iyo naxwaha xilligaasaa la sheegay maadooyinka la bari jirin xisaabta iyo naxwaha waaye shaksiyaadka cabdi garweyne barafuul iyo macalin muuse dad iga aqoon badan ee meesha joogaana laga yaabaa xilligaasaa la iscaawin jiray in dadka la baro xisaabta iyo naxwaha taariikh ahaan dhismaha ururka wuxuu u xismaa golaha dhexe guddiga fulinta oo fuliya iyo gudoomiye waxaa noo ahay wiila dhoo cabdirasaaq warsame xogeeyaha guud qasnaji xogeeyaha dibadda waxbarashada waxaa soo jeedinaynaa midnimo inay dadka dhan nagu soo biiraan ururkan qofka doonaya inuu ka qayb qaato arrintan wuxuu la soo xiriiri karaa wakiilada ururka dhiirigelinta waxbarashada qofta rabo inuu fikir ahaan nagu caawiyo qofta rabo inuu dhaqaale ahaan nagu caawiyo wax walba taleefonaa haysanaa hadda maanta waxaan ii tusi lahaa sawiradii dadkii oo shir qabsadeen sanad walba shir weynaa qabsanaa Sweden yurubta kale ka imaadaan dad badan aad taqaaniin oo odayaal iyo iskugu jiraan maamooyin waaweyn laakiin ma haysana project man ii tusi karna dad badan aqoonsanayeen laakiin waa ka xunaa inaan maanta haysanin taleefanadii waa haynaa wakiilada way hayaan waa iga soo doonan kartiin qofta inay xiriirsan rabto waxaa u mahadnaqaa oo waxa loogu mahadnaqaa ilaahay subxaana watacaala oo awood loo siiyey inaan isku imaano oo maanta meeshaan ka hadlo oo u yeesho fursad inaan ii soo jeediyo eraygan muhiimka ah oo ay waxbarashada waxaa u mahadnaqaa kale martida kulanka kasoo qayb gashay walaalaha soo agaasima kulanka walaalaha gacan ka geysta in la caawiyo ardayda dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhawaada wixii su-aalo qaba way weydii karaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام لنا هاي جواد هذا عبد الكريم معلم لنا هذا كذا قرض قيمة له كل واحد سؤال عن جرام ولا ما هذا يلا الله كان عيورك قرض يسوي قيمة يتلوي كنا نسيج وأنا رجينا إن سكدوا من ضمنه أو سوى الجرام وقص ضمنه فكان كلمة طلب من وحسين ضمنه عبد الكريم محمود جيته. بسم الله الحمد لله يوالدين تدمان جود أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي أنا كان مدعي الناس شرفت له وصغرت الهين كل كان قد أصدق وقائمتين إلهي سبحانه وتعالى يقدر إيمان كان سنة الناس له مدعي الناس. سلامك بعدي وقته ولا يري وحلا يري وقت الصوت هوش صوت عابي وقت ويري هاي هوش أنك الله يرضى وبالعرض تساوي همسة كان صوت وقوة صيّر أيوه. حمانا يا ورحمة أوروبا وليزي وليزتين محمد علنا وليزتين موضوع عن ربنا كهذا تلقي زحوا حاجة علىها يستم كان يصبح رناكاتر الله يروح يستم كوفا الحاجة الدورة اللي بقى طبعا كنا جري سد حشر أو كان موجود في مانتا نبي شروح الربط أخنا والدين تاني أرضا كي أوروبا تسبح من العين والدين تاني أرضا iyo in waalidka laga dhacay ardada ururka manhajkiisa ujeedadiisa iyo dadka laga leeyahay waa taasna waa isku waafaqay si fiican ku dhamaatay wali mar hore kadib waxaa soo baxda markaa in loo yeero tolka dhan la isu yeero taasoo sababta tahay waxaa soo baxay tolka iyo ururku midna aysan ka warqabin for example waxaa jira sida dhaqaalaha markii la sameynayo adduunka waxaa dhaqaalaha ma shaqeyso urur haddii la sameeyo ama dowlad la sameynaayo dhaqaalaha uray hal sameeyo okay marka dhaqaalihii marka waxaa la isweydiiyey marka dhaqaalaha xaggee la sameeyo sida dhaqaalaha in dowlad bixiso أما أورو معنا أما بحسه أما أورو بحسه أما شخص بحسه أوكي دولة ما بحسه الغرام هي دولة ما بحسه واحد بحسه شخصي واحد يبقى كذا كنا سيد هذا ترى كان تلي سوري ورسمه ما كان وفهم بلو جرا وذاك الدوان الجوجا ولا كان الدوان الجوجا وعلى ثم على وقت الفور أنت قدم سنة كوشة طبعا
اوكي marka dadku waxa la leeyahay dad yar ay ku ahaayeen ay ku bilaawday waxa marka loo baahan in loo gudbiyo dadka kale oo la gaarsiiyo barnaamijka qofka marka waxa marka oo gudbiso oo taa barnaamijka wada qofku wuxuu ka baahan yahay group maqal moogan oo haysto mooyso okay marka iyo in qofku ku qanacsan yahay oo sheeg waxa la marka qofkii maqal moogan oo baxay maadaama la hayr maqal moogan waxa la marka in qofkii uu soo waco qofka dad ku kalsoon yahay oo dad xog soo ogaado arrintan runta qofka marka dad wuxuu ehelka hay markuu hadlo waxay leedahay ruux shayga ma maqlin mana jira Soomaaliya waxa caado ah shayga hadisan maqlin inay ikraan ma yaqaaniin war ma ana maqlin laakiin waa soo baaraya waa soo ogaanaya mawduuca ma yaqaaniin waxay ka bilaabaan anaga waxay leeyihiin ma ana maqlin ma jira qofka marka shaa barnaamij u keentay markuu ehelka la hadlo Soomaaliya soo la yiri ma jiro adigu ku warqabto inuu macaalad noqdo oo yiraahdo barnaamij wax ka jira ma ayaa fi marka taas awgeed waxay kalaftay in tolku la isku yeero oo laga qaadcay dadka arrinta loo sheego si uu noqdo wax baad xalwadoogi idoo saas ah hayda marka qof waliba oo shakhsiyan mas'uuliyadda ninka banaanka jooga saaran ma aha mas'uuliyadda saaran kaliya dadka ku jira kaliya in laga yaabo 30 sano 40 sano wada kamana ama laga yaabo xataa la sano ma laga yaabo hal mar uu yahay mas'uul ama inuu xusuusto dadkii oo ilaa wadada ay dambeeyay saw xubarna saw xogshayna kiid inta joogay wadadii tolku tira dawla hay iyo tay dawla hay inta joogto dhaqaalaha dawla hay hada mid tahay macnaha buurta iyo mid buurta mid haba dadkii jawaab aqli aqoon haday tahay mid diinadii maadi dadka taawad dadkii boqolkiiba 99 iyo bar inta jooga okay marka in marka dadkii inta joogay aysan oo dadkooda ku noolay oo aan maalikatiga aysan marnaba aysan xusuusan dadkan baahan walaalaha garabta aysan xusuusan dhawaaqta leego waa su'aal ku soo noqonaysa weydiiso baahan ninkii shalay tago la hadda ka marnay wadda kale qayb aan soo warku hayba wuxuu ku geeyay oo saddex soo xusuusto oo la wada dadkii aan ka nimanay waa baahay xolo runtii waxaan aaminsanahay wax badan ma laayaan xaggii ka laayaan maxaa yeelay nin maqan ee dibadda jooga meesha wax kama qabto حب أولا كولي وحلا ويديروا بحيو ماشي تن هذا ما شاء الله رجل لا ماشي جوجا هو شكل بان قطي وضد كيس شفري يتحب جوجا يا والدي على الشفر وعمل له بهاي ما دام ترى قال ليدين والله ما تنو هيسين ولا غالي أن هيسين برنامج كان يقول إنه جرّو قتيوه هاي لي ديانك وحلو برا وديانك نيجي جوجا حتى خبكة من مقامه ديانك وحتى خبكة لكن وحول أول وحده ويجرّو بحيو وحالي كان بهاي مكة أوي هنا هذا حاله هذا يهدوا لي حاله هذا يهدوا والدين حاله هذا تمام تيبه إنا يسأل وشان ترى يتساقط ولا بهاي أنا وادك وحاله يا مكة عروق بس وقت ويري وقت يساقط معناها لا يعصي تبكي لا يرضى وأقوم ثلاث والمعودين كأي أغاني هذا ثوا إنا سميسان جودي أدوك أسكت وشان وشان هجامية تبكي أنا دبلا كي منا أنا إذا نقولنا هذا ريال ثاني وحنا هنا وحنا قال هنا أنا كوكبنا تسوق سوق عملين ما تعرف تسوق طيب خلينا كذا بس برنامج قاعدوين أو تلفزيون كان فيديو قاعدوين وجدتي سماعهم أنت معناها لقيت ده على تلفزيون لقيت ده أما جرها لغة معلومة اللغة معلومة وحاول ده كان برنامج كريه إن إسرافيل كريه أي في السنة اللغة ده إسرافيل سووا معاه حاجرة لكن دي لها جوجا سيدو نبا وحيو غيب سنين أفر غيبه كو حاجة وحالي حاجة أحتاج السؤال اللي فيه وسأل أبو لي محرام شرعا لوجد بنيه هذا كان يوطوه كو ضدنا حي تاقيه هنبا هذا تفتح ودي حب لي هبا أنا ودي ها يا أنت قدرت عليك وهي يعني اللي يمدر عنده قال فوق الماء إلا هو أنا موقع إنه هو أنا موقع وهذا مع مكة أنا فوق عن عين ضدك وراها هاي أنا تربيتها في السنة وحنا ورا هنا حاجة دي بدل جو صدق وحالي وقتها صقابي حنا ورا هنا طبعا حاجة بدل جو العادة اللي بحيها والعاية رجل فيديو ونسي ورا بدل جو هلا وبقول كرام هو في الله حكم الجوز ماشي أجوت بقول في الحقيقة لكن أنت وهو يلوجوز فاهم إذا ما يبيشا أو حبطة حاجة لو قفك فاهم إنه حبطة وحي لميت هذا أبي كلام هذا فقط
waxaan leeyahay marka nin walba walaalow haddaa hore bixinaysana sii korriyo bixi haddaan hore bixina hadda bixi ama gudaha jooga dibadda jooga wabilaa tawfiiq ما شاء الله كسوه عبد الكريم عبد الله محمود جيد أدي هذا يوم الثانية هاي كسو كلمة سيف على در نجسي كل كان يوحى كسر سيئة هم هان هذا الكسي أيالوي أنا نسي عنو قادمي وحاول ذاتك دي بدوي مركو حرجينا تيم كلام إذا وجوده برشلونة سكعاوية سكولات سكوا قوي لسمين دولار عندي بشغل عبد الله ذاتك إنه وجوده يجوا يجري أما جورا مركان كلمة عن سينا يا hogaamiyaha qabiilka ama beesha الشيخ آدم شيخ نور si uu uga bixiyo aragtidiisa xafladan qiimaha ay qaayacna aragtidiisaasna uu kelimo weyna بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا طبعا قرأ رئيسي حفلة هذا وناكسا هذا قرب بدن لربع هاي أنا كنت سبيت الذكرى وحا قرأوا إلي قرتين الله يرضى وحا قرأوا إلي قرتين وحا قرأتينا أقولتنا وحوى بيكو تصيصا وحال الجهل الوائم الآن أقولتنا وافتين وحال مركز مدى جوكتو وحا كبول وجيدي لكن مركز افتين جوكتو افتين من دائرة جيدي لأنه يدرس واحد تصي إن إستاذ مليان وقلتها تصي جهل الوائم الآن أتبعنا ويبهد علينا إياه كل بليرضا سمكي بالله بيسي أنا قلت لسو حريري قلت مركا ودودينا شغضين وبضانية وإيالمي وكنت لو بليرضا وقلت بيا أرنتاس ودي كرتا وأنا ودي واحد صار كمان وعن خصوصا بليرا أنقرني قلت فوق كبه حني قلوا أبتريني انت بارين صوصي رصيدة كبيانا وحكبحي ما أبا هذا المصروفي ما متساب والله يا يجري وصوت في سياسي توري لا رب ذلك يسوء قادي وكان قد بدنا ميران وعندما أيام خلط هيك الصوص علي وسئال مفيع شغب الرسول كسع وتصاصوات فكذا من كانوا شغب بدنا يقبتين قدها يجي بدأ الله بركه ويس كانوا وحب مرسل دحيسة أمس دكاس قلقلوب يجوغا أو قوة المعنى يبريو هوري غلط إسرافيل وقتها كإسرافيل ورمضي مرسلة واي ورمضي حقوية واي ورمضي نارك ساسا لوية إنكو نمارك وقول لي هدوك واكسوا بح وقال تنا إبدا أنا لقمنا وحال لي شيء أبو بني على عبد الله عبد الشريف إنه هذه جرادك تراجع أو لي ويل كان سي 7 سنوات صاحيها وكنا كبادي البيئة كل شغله لها قاروا يقطعوا عليه بالليل يدو ولا تقطعوا فرضها واحترم ما حتى ترى وقال ما قال على محمد بيد عيوب كما يرى مارك في عناته بدنا بيد عيوب انتم تقولوا ويل كان قاروا ينسيس وقربين وكي يروي الأشياء حوض مريانا بقى الحاجة كلها سوء إيه صورة قلمة توصي كلام على أوراده وكعراب دخل جيبوا سوي هذا وقال بروحه ويل كي الدولة يوم سوي حاتي ويل كي نقول كل شيء ناس حضرين دولي ويل كي الدولة هذا قاعد على المدن هاي تفكروا ليه وضبط توصل كلا صبر الحين صورة من ولا عليه لا وتسيو تلك ضبط انت وانا وراها بس كسي ورد مصابرة والسوق شمال الفرد قد يوم الدبور ولا يجا من حوها ما ما طبعا بركة وقلت ساسا لك صور معي رجع كنت بالي اسكبا إمام ضدكم ما قرفتوا تغاروا ما هيستان قاروا من حوكم ما هيستان لكن جهدي لك قرش خصوصا الاحتمالية دي
gaaxuura la geeyo ceelbuur dadkan ogolaynba oo xataa dugsida ilmuhu ku jiraan war ilmaha lagaa gaalaya waa lagaa gaalaya iska day macallimiintuna waa diidaya waalidkuna waa diidaya dib badan iyo ilmiya un isaga buuga u gabo ee dharkii uniformka u gabo ee iskoolka geeyo qasab u noqdo ee soo haysta oo sameey marka jiddo dheeraa la soo maray hadeerna waa lagu jiraa waxaan rabnaa dadmankaan waa ka soo qaatee waxaan rabaa qaybtaan odayaasha beesha inaan qaybtayg leeyihiin qaybtayda kala qaadano qaybteedii kale inaan qaadano sidaan qaaraanka markaan aruurayno oo aan meelaha qaaraanka iyo biyada iyo daqarada iyo dhibkay u ururina lacagaan soo aruurinaa waxna lagu daaweeyo maaragtay oo baahi jirta oo aan dhaqno xoog badan inaan taasna ka qayb galnana odayaashana soo jeedaan ka qayb galno hadda nin walbaba hadduu $5 baxsho bishi kii 10 bixi kara baxsho kii 20 bixi kara baxsho qayb kalaan qaadanaynaa inaan dad badan soo saaro marka waxaan soo dhaweeyaa oo weliba u duceeyahaa nimanka dhallinyarada oo dibadda jira iyo kuwa gudaha ka shaqeeya intaba in ilaahay barakeeyo shaqadoodana barakeeyo aqoontoodana alla barakeeyo wanaagga ay wadaana ilaahay u sahlo wadadaas marna allah sahla marna ma sahle ilaahay waxaan leenahay ha sahlo oo hawsii kordhiyo niyadooda ay fiican oo ay ku shaqayhayaan oo ilaa ceelbuur iyo teeriyo maaragtay bargaadi iyo dac iyo meel walba usii gaarsiinayaan in ilaahay u sahlana waa u duceeyaynaa waxaan kusoo dhaweeyaa warkuna waa maaragtay alla soo gaabshaa la yidhi jamcadiyaa lagu dhow waa idan la qaadanay waa idan la aqbalnay waa idan la shaqaynaynaa kuwa dabadda joogaan oo maxad celinaynaa ana odaga ciddaa wax alla wixii maaragtay tabartaydu tahay inaaba mataqaan hadda sii socda waayeela wax alla wixii magaciisigaa waa qaadanay waa idan la shaqaynaynaa waa idan la qabanaynaa waa idin ducaynaynaa allahan idin markeeyo assalaamu calaykum waraxmat وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسوه وها الشيخ آدم وكمل هجامية باشا إسرافيل نك هجامية الشيخ آدم الشيخ نور آدم قاجة خير الله سيا يالنا هاي ساسو كلا آدم هذا ماشي فقيا اليوم الشيخ رأيه كلمون ينسين دونا إنه عاد ياد واحد سنة هذا كستو كلمة دي سقاطة إن هو عاد نوصل قابي وقت ونقول على يعودي يقول كأو قبل كمان نمريو markaan waxaan u hayaa adeerdaahir kiire waxaan leeyahay soo dhawow agtidaada aad uga dhiibato kulankan muhiimka ah ee waxbarashada looga shiray الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبعد طبعا waxaan salaamayaa kasoo qodolayaasha xafladda waxbarashada waxaan ku salaamayaa salaamta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam ilaaha mahadle waxaan u mahadcelinaynaa dhallinyarada iskaliftay oo dibadaha joogta oo ku fikirtay dadkii waddankay kasoo tagan jiray inay u baahan yihiin waxbarasho iyo taakulayn ay ku fikiri waa ku mahadsan yidhaago intaas ka bacdi waxaa la rabaa in laga qayb qaato sida la sheegaba waxbarashadaas wixii dibadda jooga ay ka qayb qaatay kuwa dalka jooga ka qayb qaata waxaa la rabaa dadka dhalinyarada oo wax la bara waxaa waaye dadka beeraha tabcada waxay jeelihiin beertii abuureen in wax ka soo baxaan waxaa la rabaa dhalinyaradaasi iyaguna inay ka faa'iidaystaan waxbarashada dadkaas ku fikira dilaha jira inay wax ka bixiyaan ومشاهد كل يرى وحول تعرفها هذا لا يفعل سوى بلاش مركا نلينا فرصة هالشيء لقبحها وحوحها وإني وحبطان ويقول لك بحمول كلي صار كلي أي وتدخل وقرب قبطان لهذا كلو وقدم بيسا أي مارتي أن وكال ميان هذين وحبرنا المكال ميكاريان ويكفي ينسى هذا فرصة هذه يكفي ينسى بلاش خسارة عب خسارة waxaa soo maaragtay u mahadcelinayna kasoo qaybasha dhammaan
nimankaas dhallinyarada waxay rabaan maanta xafladan waxay ku saabsan tahay in la isbarto la isna arko iyaguna waxay rabaan waxa waxay qabteen inay arkaan u baahay maanta arkaan oo dadkii wixii ka soo baxa arkaan dhallinyarada wax baraysa arkaan dadka beeraha tabaruurtay waxay fuushaan beertiisa u waraabtay biyo ku jiraan baan ka soo go'ay xaakulayga moogta marka waxaad bixaysa waxaa rabaa meel ku baxay inaad ogaato xaqay u leeyahay marka dhammaan waa mahadsantihiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاتوه هذا الدار حيري وكلمتي سكو آدن حفلة قيمة خيال كهدوي مركب وحاوية كلمة هذا ميدا وحاسيد الله هذا الظاهر شيخ حسن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan ku bilaabayaa marti sharafka ka soo qaybgalay meesha dhalinyarada jirta soo abaabushay yani arrintan aad iyo aadan ugu faraxsan waxaan la hadli lahay waxaa waaye aad iyo aadan u faraxsanahay dhalinyarada mataqaanaa ku fikirtay wadankii gadaal soo fiirisay dad badan oo soo fiirin waa jiraa laakiin dhalinyarada soo fiirisay gadaal xagga waxbarashada soo fiirisay maaragtay yani tiri allayde waxbarasho wax karoon oo qaba laheedeen ma jiraan abiin aad cid bariisaan waxba ma tarayso waxbarashada maaragtay allayde mataqaanaa sida ay u tixgeliyeen ay maaragtay uweyn usoo abaabuleen ama muxuu ahaa ugu yeesheen xibno uga wakiila dadkaas la saacidayo ay halka uga yeesheen siday wax isugu xireen wax la soo koobi kara maaha waa wax lagu farxo waxaan u mahad celinaynaa bacda waxbarashada muxuu ahaay ururka magaciisii ururka waxbarashada taagelinta waa mahad celiyaynaa aad iyo aadan ugu mahad celiyaynaa odayaashii iga horreeya warka soo koobay annaguna wixii kalaana oo aan maaragtay aan bixin karno ama aan ka geysan karno gacanti aan ka geysanayna waa ka geysanaynaa sidaasna maaragtay naga gaarsiiya sidaasna maaragtay waa ugu mahad celiyaynaa ururka maaragtay yani bahda waxbarashada assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاتوه أدير ظاهر شيخ حسن وكلمة قيمة خيرا عن كان كسو جيدناي runaan shirka gabagabadiisa iyo gunaanadkiisii ayaan ku dhadhownahay shirkaas oo ku aadanaa waxbarashada ururka waxbarashada ee beesha Israafiil oo looga hadlayo qaybta gudaha iyo qaybaha banaanka warbixin taa ku aadan iyadana oo aragtidiisa si aan u weydiino ama noogu soo bandhigo waxaan siin doonaa adeer xaashi cali qordheer ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan salaamayaa martisharafta soo qaybgasha shirka si gaar ah ragga abaabulay dhalinyarada gudaha abaabushay intaa kadib walaalayaal waxaa maanta runtii dad badan oo qalbigoodu dareemayo arrintan waxay tahay oo suruntii aniga hadda ka hor sida nabadoonku sheegayba bilowgii horaan ogaa waa dambana meel ay ka baxdaba maaragtay ma fiirfiirin marka hadda la yidhi arrintaan imaadee arrintaan maxaan ku idhaahdaa warkeeda aragna khudbada markaan dhegaystana been idin sheegi maaye wax badanaan maaragtay dadkii ugu dhaqaaqay hadda waxaan leenahay waxbarashada warku waa dhan yahay in loo dhaqaaqo oo aan maxaan ku idhaahdaa u istaagno inaan ka furno halkan qaybtee nanaga rabay qaybta muqdisho oo aan istaagno oo aan maxaan kula xooga saarno
raggaas yaryada ku jiraan hadda cumriga u jeediin na waxaan leenahay soo dhawaada khayr allah in siiyo waxaa samayseen sunno fiican ilaahayna maaragtay idin toban laabo sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam annaguna insha allahu tacaala aanu istaagno warkuna intaas iga xeeyan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحن كعذر دارنا هذا رأى وعنا وعزمني وحفلتي invitation كيدي لوجي وأنا جلس وقيب كريم سيدا هذا حسن محمد سياد وكله يا ضد وملحة وقت كل مسامين ويجانس كمرة كل ما كلام جلس وقيب كلنا يا رجالنا كل كان أنا وروسي ودي دونا وروسي أبقى دونا كلمة عالم إذا سياسنا ركتي سوق دي بتوع حنسي دونا عبد السعدي شيخ محمود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحافر حلوينا إن كسر غيب كلنا مناسبة غارقة. وإسم الله يهمدوي كان دبتنا كالسوما إيمان. بين فرحة قليسة وحبر الشدى في شيء. إن الله هرم مريو oo dadka dibadda jooga ay qarashkooda ku bixiyaan oo inta laga dhiirigeliyo aad bay noo farxad gelinaysaa waxaana leenahay mahadu ha ka gaartay nimanka arrintaa abaabulay ee ka shaqeeyey waxaa su-aal dadka ku soo noqonaysa ah muqdisho oo ganacsatadu joogto oo odayaasha dhaqanku joogaan oo waxgaradku joogo dadka wax loo qabanaya ayaga ay tahay in macnaha aysan uga qayb gelin sida banaanku uga qayb galeen su-aashaas waxay ku soo noqonaysaa reer muqdisho jawaabayna u baahan tahay waxaan rajaynaynaa arrintaas in lees abaabulo anigoo og in geed walba ay hoos taal dhibku uu yaallo oo guri walba ulays hoos yaallo haddana si caama ee wax loo qabtaa wax weyn waayo si caama in dhaqaala laysugu daro looga shaqeeyo arrintaas arrin weyn oo dadka taabanaysa waayo marka waxaan balan qaadaynaa odayaasheennu in arrintaas aan dhiirigelinno oo aan ka shaqayno sida ay uga shaqeeyeen walaalaha yaryarkaa oo bannaanka jira waxaan ogahay dadka bannaanka jira oo inaysan ka deeqtoonayn lacagta ay soo dhiibeen oo in badanoo ay lacag yaroo ayr qaataan iyo in badanona ay dadkooda ahalada ay ula yihiin lacagta dilkaaday sii jireen marka wax weynay noo tahay sida ay u xasuusteen walaalahooda fiidye iyo intaan iska bixi karin lacagaha biiga arrintaasu aad bay noo farxad gelinaysaa waxaana leenahay jazaakum allahu khayran ajir badan aad ka helaysaan walaalihiina waa idin og yihiin qarashka aad ku bixiseen iyo juhdiga aad geliseen annagu waxaan balan qaadaynaa arrintaa inaan wax ka reexno oon ka qaadano qaybteenna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكاسوها هذا السادي شيخ محمود وكلمتي سيارونتي قيمة خيال هلكا نغسو جدي قبل يقولان تكي شركة أما جلسدنا أما المرينا حفلتنا حفلة أوران لو ما اعتري قرار حفلة دي بسرعة كينتا وباشا إسرافيل وحبرشي الويقين إن سيئة كيان سي بلشدة صوماليات ومغران سيدو الشيخ آدم قائد القبيلة وقاميها باشا وعير باشا وعن في قنجر وحبرشو هي علمي وعن وحلنا دنيانا جيلك وحلقة بيوم مقعي شرفتي إلا إلى اليوم أبياشي ويوينك باشا يكون تغيران يورانا كو قدائي كو دبت جو تعليمتي ساحدي دينا كم وغنى الله إلهي سبحانه وتعالى وإلوانينو دل كان يدد كان نهار مرينينو مركا مقع حسينا سياد كان أيام رجينينا وأنا أقول قال يوان مرتقى دلان قادم بإذن الله ما دام ركز قال الشيخ لقد يوالينا كلمة الأنسين دونه markaan waxaan kelimo siinayaa dhanka aqoon-yahanada beesha waxaan u yeerayaa mid ka mid ah aqoon-yahanada beesha oo la yidhahdo almuhandis injineer cabdullaahi macalin cabdulle wasiiqo soo dhow ayaan leehay وسلامتكم لمان هذا الدمربة أنا جري يريا غرفة أنا ماشي أنا جنب غرفة وغيار أنا جنب حاجة وما شيء وحي على المد آد يا آد أنا أفرح سنة ما أنت
sidii kale uga fudnaan dhalinyarada laakiin balse doonto ha ahaatee waxaan ii sheegayaa dadka urkan suugiyey waa dad aad iyo aad cajiib u ah 1974 aan waxaan tegay magaalada Johannesburg qowmo oo ururka aasaasan yahay waxaa joogay Soomaali oo dhan safaaradda laba nin oo ka shaqeynaysa iyo laba nin oo la yiraahdo midna marshaale ama tan Soomaaliya Stockholm ay ku dhintay iyo Maxamed Abdulle in la yiraahdo labadaas ma u tahay Soomaali oo dhan ba Scandinavia ka dhan ba marka saddex bilood oo fasaxan ugu maartay ugu ximadan joogay waxaa la yaabay hawadaas xumaanteeda meesha dadkaas oo ku nool yihiin ama ay ka shaqeeyaan hadda ogaaleedin lacag ay ka soo iibayaan dhibaatada ay leedahay anoo ku sheekayna la yaabo noloshaas dhibaatada ay leedahay kaas oo ay aan ogahay oo dowladda markaas ay tagay safaaradda Soomaaliya Cabdullaahi Salaan Haysa ayaa safarka ahaa kaasoo safiir lahayn oo aan dad adna lahayn oo aan dad lahayn oo aan qaraabo lahayn oo aan waxba lahayn oo aan ku ixtiraamaynin oo aad madow tahay oo aad muslim ka sii tahay oo intaas dhibaato ku hayso oo aad ku farxan tahay oo gaajo ku hayso oo cudur ku hayo oo jahli ku hayo oo aad luqad u qoonin intaas oo dhan ninka intuu ku noolaaday lacag kaga soo dhiibay haddana lacagtaas la soo xistay si horta ma aha oo qabina أنا إن الغولين ده في الدولة إحنا وحستان وعدك السنية ده أقول لي تقول وحستان أقول عديسان وعدك ماشي فيه وأنا أساس وقالتان ده في الدولة تجرى وعدك الموجود إنه هو الشطر وحاولت عن الستان والله الستان وقوات الستان واستعشين مسلماتين والتفتين سلاة الجنسين وليه الدماء وحال مقاسان ولانه قرابين ما يسكوها تتطلع حقونا كتا حاجة عندنا مرة العكس الرسول دي والسكول الشفت الرقوب حاني waxaan u soo jeedinayaa dadka lacagta la siinayo waa in la deensho lacagtaas deentani qof kasta oo wax ku barata lacagta waa lagu dhigaa ururkana waxaan ka codsanaynaa inay qofka ay ku dhigaan deyntaasi hadhowto ay soo dayso oo mid kale oo iyagoo kaleetooda ay hadhowto hadda isu xooba haddaan lacagtaas la deemin waxay noqonayaan kuwa la siina kuwa tuuqsay ahaanaya هو العكس عن العكس تكتب بواحد أنا توصل يكتب فحاليا ما قدر بسوحنا ولا سيد دور سيد دريق يسكتلي يسكتلي ولا سكنها يكلم كيس وأتصل سوق يكوس وقعتي هتوصل لك يكلم كسي تقصد إلا شيء وهو يحاول تري مشروع وعلى إن السيستم النظام اللي هاي وهي قانين ولا العكس وبحنا يسوع بارشة وحارب حكايتين معنا وقت وحالة جديدة واحد في سبيل الله وفي عنده الوصية لكن قف هو استغنى أنا بقى اللي يلاقوا عليه وحلو كل ياتين أنا ولا يجي جريس كل ولا يجي جريس بس معاً شو محمود الله نستنقعه وحلو شيء جرين حاجة بقول لي يا أنا لطاي الدولة تقول هذا تقول لي عد تستعبد فيه واحد إلى مجران وإذا يحتاج تمان لهم قان قاعد هاي كل يجبح عادنا قبل هذا حق ولا لكن وحلو بايع وجوجوني سا حبر ماشي هو بصور العكس سعودي أصل العكس تقولي سا مش عكس والعكس دين الأولى هي وقالت الماء أنا خلاص شافه ودين اللي كل اللي هذا وعن كل قولسك وعن كل تتكلم وعن كل سوجلك وعن كل قوة وحفاظا وعن كل تركة وعن كل ذاتك أو مسلمين تأكل مساكين أو كذا ما تستوي الصومالي الأولى وحصل وبرا وحصل الثلاثة وعن كعوسانية إن آدي آدي وحبرسنا الله تجيهيو تجارب محاكمة وعلى عدي وطن كأستراليا لو هذيك شيء حاسس محمود إنه هاي مبارنية تذكروا في أفرقون أو قفوت أو صومالية قالوا هذا هو يقومك عنده حكي تقالوا شخصا وحين حلقوا ثانيين تعليم أمر الله التكتورية بوقت الأخيار علمي قالوا يقانوا حسب علم معه هذا كبره علم ماشي يقانا ماتماتكس نكي يقانا هذا فانكشن سوقات أو لوغريثم فانكشن تقانو لوجع تقانا ما تصير البراني يسأل لوغريثم فانكشن ما تقان بس تقانا سوبر بكتيريا غوفة كسر على after a time أي غوفة ندير كرتا وأنا شيء كرت ماتماتكس to be a function of factor m is equal to y to the power t فانكشن تصاعد كتوع أنا هون طبعا ربان إن لو بدرو
وأنا تقانان إن أدعنت وعكتقان وعليك تمد عليك إن كمدا مد كانت شقيقين ومصروفه وعليك تمد كاسي oo iskuulka ka soo baxay ee dhaha jaamacaan ka soo baxay inuu baabuur wadi oqon waxay kartay inuu loo korontada mashiinkiisa ku dhasho korontada ku dhalataa maanta korontada ku dhalataa inuu aqoon arday ka soo baxay waa dhib badan tahay markii secondary ugu dhigaa secondary ee raasata waa physics waa inta ka taqaano waa in garaashada la aado waa in beeraha la aado waa in caafimaadka la aado waa in wax gacanta qofka waa in la dul karo qofku waa inuu cilmiga u yaqaano gacantiisa uu ku fulin karo oo u bedelo nolosha ma aha wax intii la xifdiyo aakhira ajri uu helaa keliya ma aha ajri way leedahay oo formula physics ama mathematics tadaxiliso waa wax aad iyo aad u weyn oo muslimiinta ku qancinaysa kuna badbaadi karta marka waxaan rabaa in aad iyo aad u fikirtaan oo aqoonta inii diray aad si ruma u barataan qofka saaxiiba waa inay jambuuska taqaano waa inay af ingiriiska taqaano وين اللغة العربية تقانا وإن دراسة تقانا وبدأ أنتان صوت برتا وإن دراسة تقانا صوت برتا دراسة بابوك صوت برتا وإن كلها سيدة ودراسة تقانا لفوت تقانا وحاسة ودراسة مالك تقانا وحدي معا رمت واتاس لكن وإن علميسا أو سكولك وعلى كان سيدنا وإن تاسيري أوها بينه وعليه استاندر وعن شاء الله قال كونترات ولو إسيسا مالي إلى الجزيرة ستي كل لا بقول أقول أو مدرنا على كذا شروط اللي هو حلو حيات شركات أوروبية هنحاول كسر كنا شركات داس أيام كونتراكتي أنا وكل أنا نقلي وهل يودينا اللي قال هلا يي ولا اللي نبغى عايز ولا سوبر يصير أو كمبانيات كاي ستاندر على قال هلا ستاندر هو محورية ستاندر وأنا حتى أنا هون هاي نوديها ستاندر محورية ستاندر ما فيش ستاندر وأنا محورية دي كانت تفوت اللي سيمش ستاندر كاس اللي قال بحاول بيها ستاندر كل محورية وهذا سيرتيشن كان نظافة بيها إن أقانوه واللي بديها كجوابي تبلا وأنا هذه تبلا ماله حرو أو الحرو ما نتي مصوص أما كل شيء تبلا فجرته وهلاله ما مركز سقاط أقانه هنا لي لكن ستاندر وحلي له بهاي أو كواليتي ما هو عصر إنه أنا قف أو علم أو برنامج أو إنه ويا كأنه نورش يصير كده بركة شاش ثلاثة وحنا مركز كل علينا waxaa aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa arrinta dadka dhalinyarada ah oo aad iyo aad u dhibtoon ee ogaaday in aan xal kale uusan jirin in wax la barta aan ahayn waxbarashadu marka lagu leeyahay ma ahan teori keliya ma aha waa inaad practical u bixisaa marka dadkaasina waxaan rabnaa inaan gacan siino oo aan gebigeed isugu tagno in aan waxbarashada oo practicala aan barano sidaas daraaddeed وآدي على أمة علينا وديالك داسك جرا وواحد عشنا أجري أبد كذا وحسوبر جرني حتى هيك جبته وحبرت كذا أنا كوباية كذا كنا وحنو أجرني سأسترد الأمة علينا هذه كانت قصة قبلتنا يجلس أمة علينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول يهنا لو أدو بدن يوقتي لو أدو فلان يا معن نو سامحين جالس أنا سين قف كست كلمة يسوي منا بالمركز وحوا يا أقول يهنا كاملا ومرا النظر محمد حسين يدا نسير أركتي له يفعله أو بجده حفلة أخرى غالبا وهرين واحد سلام أنت قرابة وماش صور ذيك فقط مش برنامج كا أنت أنا هذا الكلامين حاجة على يعني هنا نفسي اللي هذا الشيء أنا ماستر ديجري هاي sustainable development يعني ده صاحبتي سودان جامعة سودان على إيه باج rural development horumarinta reer miyiga marka waxyaalaha aan dhiganay waxaa ka mid ahayd in ay ku horumaraan inay si group ama organization inay u wada shaqaystaan si ay horumarkooda iyo ay ka shaqeeyaan marka waan ku faraxsanahay inaa walaalaheed oo hadda fikraddaas sameeyeen walaalahan dibadda joogo waxbarashadana waa waxa oo horumarka dhinaca u fiican waaye yani waxbarashada dhinacyo badan horumarka dhinacyo badan ay ka mid tahay laakiin waxbarashada
qofta wax barta asaasii horumari karo bulshadiisa iyo dalkiisa marka waa u mahad celinaynaa inay juhdigaas bilaabeen walaalaheen hadda Soomaaliya joogo aqoon-yahano way buuxaan maasha Allah kuwo badan hadda dibadda ka imaaday kuwo wadanka hore u joogay marka qoftani ma ahan bas lacag leh inay wax ku qaban karto fikradiisi iyo intaas wuxuu soo bartay xataa mujtamaciisi dadkiisa uu ku saacidi karaa marka inay ururo saas oo kale ama ururkan qayb kamid ah inta laga sameeyo ama kuwo kale oo dadkeena horumariyo dad xataa oo fikrad isku darsado wixii lacag lahaayeen lacagta laga qaado wixii fikrad lahaayeen fikradiisa ku qabto xataa waxaa jeclaan lahaa fikradan oo ee hadda waxbarashada ardayda oo 42 qof oo lacagta laga dhiibo waxaa kasii fiicnaan lahayd iskuul oo free ah in loo sameeyo yani inaa dadkan dalka jooga dadka dibadda jooga wax isku darsano iskuul oo furno oo free ah taas waxay noo saaciday hadda koow manhajkiina anaga gacanteena ku hayno oo ognahay ardaygaan aan lacagta ka dhiibayna amba ardaygaan lacag la-aanta wax ku baranayo wuxuu baranayo naftirkeeda yani hadda adduunka waxaa dadka lagu soo saaraa ama dadka maskaxdooda lagu xukumaada waxbarashada marka hadda manhajka anaga soo samaysano cunugu wuxuu baranayo waa ogaa karnaa diinta xataa diinta naftirkeeda hadda dagaalay noqotay diinta dhinaca fiican dhinaca waxtarka u leh dadka iyo diinta waa wada fiican tahay يعني سيسا حسن إيه وشرحي تعرفنا وحاكنا مكا أنا حكونا منها الشيء قرنا يعني يا أنا عارفة بالمرة نص كذا هذا نص كذا هذا عنا عندنا بدون كذا أنا كسكول أفضل مكا حكي على لها إنه هذا شركة على هذا الواحد يسكت إمارة أو قف قصة معه ذاك مكبح أسكين مامو waxaa jeclaan lahaa marka inaan fikradaas hadda raadino guddi oo Soomaali dadka jooga leh oo shaqadaas noo bilaabo insha Allah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بروفيسور نظر خير الله بشيء يعني لنا هاي كلمة قيمة قاية عليه. قبل بدي قلنا لك برنامج كنا يعني مرينا ما كانوا عنسين دورنا dadka kamid ah ayagana si ay kelmooyinkooda araada ra'yigooda uga dhiibtaan markaan waxaan siin doonaa adan cabdisayid cali maxamed si uu kelima uga yidhaahdo halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتها سلام كثير. وحنا ما تقولين يا رياض السلطة ورتب دور البلديات اللي هو البلد الجنسية يوم هذا يحدث. سياسة فرتور شركة وحال السوق دي عيارتي يقول رئيسي. marka ayaga ayaa la qabaa horta wixii wanaag ah ay hor u yiraahdeen laakiin warqan shaqadiisa waxa uu tahay fayr tahay raaciyo ficil waxa la sheegay wanaagiisa iyo sharaftiisa ficilkiisa lagu daraway marka hadda khayr Allah siiyo meeshaas jooga ee raggaas diilay dunma bilaabo shaqadan runtii waxay qabteen shaqo cajiib leh qof walba hadii la dunma marna wuxuu sameeyaa wanaag marna xumaan sababtaas wanaag bay sameeyaan khayr Allah siiyo tolka meesha jooga waxaan ka codsanayaa marka iyaguna inay raacaan tusaale fiican bay bixiyeen wax la taaban karo runtii aad iyo aad loogu farxay sameeyeen waxaan rabaa marka tolku inuu buuxiyo meelaha ka dhiman markaan leeyahay ficilay rabtaa warwaxoo keligiis waxaa matala runtii waa sax ama marka hadalkaan soo koro waxaan rabaa nimankaan odayaasha hadda barnaamijkana suuqaya inay sameeyaan horta guddi oo inta hayar dhaqaalo inta yaalla aqoonti intay taallaa dadki halkii joogaan nimankaasna runtii aad bay u mahadsan yihiin marka xooggaa laga rabaa marka meesha inuu ka qaco sidaas darteeda waxaan qabaa in horta guddi aad samaysaan raggiinaan meeshan jooga guddigaasna uu noqdo guddi haddii ilaahay kuud maayo nimankaas iyo ehel isku xeer أنا مركب فعلا قطعي كتير كمان نقولها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركب كلمة علامة وعن سيدنا عثمان مختار. عثمان مختار.
waxaan la qabaa inta magaalada ragga waxayaan la qabaa oo yaashaha oo magaalada ragga hawshan soo bilaabay iyo inta ka qayb qaatay oo qalka ama gooshan diyaarisay marka waxaan leenahay xamar baasha tooda marka fadxa gooy taala niman ilmaha wax la barayaa u aadiyeen gudgeena joogan gudgeena joogan dadkaas oo naga xoolo badnaan naga xoog badnayn naga tahay badnayn laakiin waxay dheeraadeen garasho marka baasha xamar tooda taala midda kale ragga wax la barayaa suulada ugu weyn waxay saaran tahay dadka wax la barayaa oo wiil ama gabdhaha sababtoo ah duudaan u baxshay nin walaalkiisu hoo qaar fog jira ayaa wuxuu gartay in uu walaalkiis maartay waxbarasho u baahan oon iska bixi karin fiigii uu jiro saas darteed uu ka bixiyo asagoo fiigi ka bixiy marka waxaa rabaa ninkaasi ninkaas u fikeray inaas u fikaro ninkaas u fikiray inuu fikaro dadka daraynin inuu ogahay fursadda uu hadda maanta haysto mid walaalkiis ah oon fursadaas haysanin in uu joogo booskiisina asiga u fadhiyo haddii asaga laga bixin lahaa ninkaas awood uma gaarto asaga joogo booska marka waxaa la rabaa ninkaasi inuu kasoo dhalaalo kaalintaas hadduusan kasoo dhalaalayna booska uu baneeyo oo ninka walaalkiisa oo u baahan oon fursadaan helinin oo u baneeyo fursaddaas saaran wiil iyo gabdho waxaad ogaataan mas-uuliyaddaas inaad iskoolka loo geenaan rabaa in wax maadada si durus sifac loo akhriyaa rabaa in maaragtay lagu dadaalo la ogaado lagu xisaabtamo fursadaan aad haysataan walaalkaa u baahan oo fursadaan helinin in uu jiro kaalintaas marka inaad adugu ama ka soo dhalaasho ama aad barisa lagaa raba waa ragga dhalinyarada hadda wax baraysa ragga kale oo odayaasha ah oo waalidka ah oo meesha joogana ilmo yaryar oo dhalinyaro ah oo qaxay oo qaxootiyo oo baraf jooga ayaa waxay garteen in meesha ay ka yimaadeen ilmo walaalahooda oon xabaan ka bixi karinin ay jiraan annagana waa ders ama gurigeeda jooga ama dersi nala ahaayeen ma garanin marka nimankaas arrimaha soo raaban waxaan leenahay hana gaari waayne hana gara waayne annagana waxaan naga rabaa inaan qaybteena qaadano oo aan bal aan isku dhawro noga hormaray aan ka daba shaqeyno insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gabagabadii gulaadkii barnaamijkeena xafladeena ayaan joognaa markaan waxaan siin doonaa kelimo ardaydii ku guulaysatay ama ka aflaxday oo wax ka qabsatay ama wax ka baratay barnaamijkan arday ka mid ah waa ardayga la yidhaahdo cabdulqaadir maxamed wuxuu ka mid yahay ardayda ka baxday scholarshipka wax ku baratay ee dugsi sare dhamaystay marka ardaygaas waxaan leeyahay soo dhawow si aad adna kelimadaada wax uga tiraadid haddii uu namaqlayo uu joogo ardayga la yidhaahdo cabdulqaadir maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومسنتين دكتورات دمان عبياشة دمان ومسنتين عن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوم بقي روح على هذا عبد القادر محمد عبد الله السيدة وحنا كمل هاي أرتدي برامج كانوا باللاعي ثلاث كيلوات كنت مع السلامك وحنا دمستي إسباب السبيل اللي هو حكى بحكي فريق خالد نوري حدنا وحنا كنا SIU ومعنا الجامعة الصومالية العالمية SIU وحن كل معنا وحنا رميش عن برنامج كارين أو هذا الله بس شيء وكريه تنكمل حدنا فوق وحواي وبتصاب سبيشة يوضح كمية المادة أوتومات ويبدو النص ويتي إن ضمان نمشي من تلسون مع نفسنا عشان عيلنا وحبرشة ومدة عند الدارم فينا يا أرضيها هي مدة حتى كبر الموضوع في جمهور الجولات أهمية التعليم حتى وحبرشة نحب كله وحبرشة ومعنا فائدة وحبرشة الفائدة وين كلها لأنه وحوا يقفك وحبرتين يقفك أو وحبرنا مصنع الله واكر وكلي هاي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يسميه نقفك وحبرتين أما سقفك وحيقانا يقفك وحقون أنا هو مصنع هذا كجارا كل وين إلا يرجع معدد مع رجالنا إن شاء الله تعالى ذكر لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أيام ما تنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مر لبعض مر سدحات مر أفراد مر أن ترى الله ونحن مهد علينا ونريه أوركا السوء قاسم حفلة قيمها يقايا عليه هرقلي أرتي باشا كاملة إنه دوكس السراء كبها ما أنت أولك مرحلة جامعة هدف كان سوني من نواسيدا رونان هذه بيل يرنولس dadkii na gaarsiiyay darajadaas markaan waxaan kelimo sii doonaa waalidiinta ka mid ah waalidka oo laga dhiibay scholarship ama waxbarasho free loo siiyay ciyaalkiisa waa waalidka la yiraahdo Macallin Cali Cabdullaahi Macallin soo dhaw ayaan leeyahay si aad uga tira kelimo halkan السلام عليكم يا الله خالقه oo na abuuray oo islaam naga dhigay oo beeshan ku sharfay diintiisa in kulligood ay qaataan muslimiin noqdaan kadibna ay taawiyaan qurbada ka galeen shiratuuni kitaabka Allah dadka diin kitaabka Allah ka tagnaa way hoos oo ay u dhaceen waxaa ku dhiirigelinaya ciday wax ka dhiibayaan in ay tahay cid nadiif ku ahdiin وإنه حفاظ القرآن كأن يكون كالتميان ورب الشروط أي وحيريان إنه حافظ القرآن يعني الدين مثلا نسألين أجل كله هلان حاجة النبي صلوات الله وسلام عليه لا يأكل طعامك إلا تغير وف عبسط على كعبسط النبي حتى لو حسين الجديد لك عدوا على يدي بيسي شروطه وقرآن وعبسي مثلا وفسي كرسينا يا إنه قاسون الله إنه الدين سيدا أعمال الوكيه الكأ من عمادي من طبعا الكوعية بودهان وحان عن مطلوب الدارم يا ولالي هنا يا سرافيل إلهي سبحانه وتعالى أنا وحول مشرف كتاب القرآن ما تنحت أهلو هلا يغنتي وربع رشاة الدين علماء عن المدين ومد النسوح وتقدم وحانس كده هنا وحول المسودي حانس ده موضوع عظيم أخوان الله الماوي إلهي سبحانه وتعالى عند كرغة بكتاب أيون كرغة عند الملكة كبحرنا ووهوز قليلا عود ابن عباس يمكن جليل كاه والنبي المالي من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما عنده لله وفي الدون التي سوحوا يعني وعقاله فلينظر ما عنده لله سوحوا على وحيه وفي الصور متعلمة في وفي الصور جامعي في وفي الصور دغالي ويخسر في حديث الله وغني كتاب في سنة وسنة وعقود الدار ما يدويش الله غلط قدرك الكوبان وملكا إن غفنا كتابك وعلماء نمر الأولية ذي أن سوعي إنه شرف فيه وليبا رجع دبدا متقانا ساس حوديوي هي رجع كذا أنا أسكاش أنا أسوسنا عفرتن كده ونقولنا إن الدين تبرنا أو حكى غير إنه عبدي كش غيري سنة نقول أول شرفونه أيوة متقانا أجينا هو مرعى إنه سوعي أو مثلا كتوها كلية أخسر أو كل جنا تاجرنا وغلط غلط كلامات وحن عبسنا يا عدي صورة قلتها لا ماشي لو قلت حين المهد المثل إن لو رب حيو معلمانتا أو نهلا سكول أو ليا إسرافيل أو مدو أي مثلا قوم سيرتب أو ليا سوكاس العلمة أو رضو العقرانة كلها ماشي ما لو قلت حين معلمان لو قلت حيو أو سكول أنا وأعلان لأسولي مالين بدو حيو بدن تاقنعوا بيلي يقول نعمة داين أنت وحابرة قلت وحابك الأسكول نصعب لنا أو بقولك كنت عبد عيك الصوت هذا بقولك كنت أنا ما وعن وسنة يا سوق لسن مثلا نسيبوني أود الله صاروا المهين أسوق برتان لغاين أسوق جينو مثلا معلمة راح نعس راجع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسوه على علي عبد الله معلم أو قد بيسكو دارادي هنا عنا بوجاديي دانك وبرشة دانك استيتاي ونهار إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كلام وحيسلا إن شاء الله وحي عن قالنا ونفتنا يا شيطان يا نور قبني وعندنا يري أو كفوف إلى مرنا كعيرة تيتريسكا يدرجات سير الواقع بيمنا قانو وحي عن قبل ذاتك نصيحة لوالدك ويركي إماموينك يا بيا